bandhigga ubaxyadani sida wax walba oo lagu soo bandhigo Kuuriyada Waqooyi waxaa lagu xusayaa qoyska waddanka maamula. bandhiggani waxa uu ku tusayaa jacaylka ay dadku u qabaan gantaalada. soo ma aha wax lala yaabo in meel ubaxyo lagu soo bandhigayo la keeno gantaallo. maya ma aha wax lala yaabo runtii. waxaa jira warar sheegaya in la sameeyey tijaabooyin balse lagu guuldaraystay. tan guuldarra ma aha, waan guulaysanaynaa mustaqbalka. ilaa iyo hadda telefishinada Kuuriyada Waqooyi laguma soo hadal qaadin tijaabadii gantaalada ee ay ku guuldaraystaan. laakiin waxaa run ah tijaabo kasta oo ay ku guuldaraystaan waxa ay ka dhigan tahay hal tallaabo oo ay ciidamadu ugu sii dhowaanayaan guusha. dabaaldeggan weyn ciidamadu waxay ku soo bandhigeen qaybaha kala duwan ee gantaaladooda cusub. muddo 10 sano ah ayaa Kuuriyada Waqooyi loogu hanjabayay cunaqabatayn, taasoo aynan marnaba u joojin. sida uu madaxweynuhu sheegay, Maraykanka iyo xulafadiisu midna ma aqbalayaan in dal cadow ah uu haysto hubka nuclearka ah. sidaas daraaddeed waxa aanu ka shaqaynaynaa haddii aanu nahay Maraykan iyo asxaabteeduba in aanu la shaqayno hoggaanka sare ee Shiinaha oo aanu xal u helno arrintani. beerta xayawaanka lagu daawado ee Pyongyang ayaa waxaa ka jira farxad iyo jawi wanaagsan. xiisadda marxaladda adag ee soo muuqata ayaa ka fog maanka dadkan. Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqata mid kalsooni isku qabta, una aragta hanjabaadda madaxweyne Trump mid maran. waxa kale oo ay aaminsan yihiin ugu dambaynta sidii madaxdii ka horreysay in uu garwaaqsan doono halista badan ee uu dagaal keeni karo.